ثم تحامل الغلام على نفسه وقال: يا عمي، صدقت الرؤيا والله، صدقت الرؤيا ورب الكعبة، والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. المشتاقون إلى الجنة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها، التفت إليها ثم قال: ما قلت؟ قالت: هو ما قد سمعت. قال: ويحك يا أم حارثة، ويحك يا أم حارثة، أهبلت أو جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المشتاقون إلى الجنة. أخبار وأسرار، أسرار وأخبار. ساسوبا وحيني سوق بنيسا المشتاقون إلى الجنة، جنة الريال. وحام هذه أمان له الله ugu talagalay jannada firdows addoomihiisa rumaysan tawxiidka martiqaadiya maamuus ahaan oo u fududeeya camalada wanaagsan ee gaarsiinaysa iyada addoomihiisaasoo aan yeelan sukadeeda shuqul kale. waxaa mahadiya ammaan leh allah askumaha cirarka iyo dhulka ee ka dhigay malaa'igta rusul baala leh 2 ama 3 ama 4, soo diraha rususha rusul bishaarooyin sidayaalah iyo sidoo kale degniina sidayaal, si aysan dadku xujo ugu helin alle rususha kadib. waxaa leh mahad iyo ammaan allah ee uga raali noqda addoomihiisa in yaroo camal ah oo u dhaafa in badan oo ceebaal ah. wuxuu u iltiray nicmadiisa oo ku waajibiyey naftiisa naxariis. wuxuu ku qoray kitaabkiisa in naxariistiisa ka soo dhaqso badan tahay caradiisa. waxaan qirayaa in macbuud xaq ah jirin allah ma ahee keliya, cidnana wax la wadaagin. waxaan qirayaa oo kale in muxamed yahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii. allaahuma salli wasallim wabaarik calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi waman saara calaa nahjihi wاktafaa aharahu ilaa yowmi اddiin. intaas kadib, walaalayaal, gacaliyayaal, alla weyne jalla wacalaa uma abuurin khalqigiisa dheel, ugamana tegin bilaash, ee wuxuu u abuuray arrin cadiimah oo u diyaarshay xil culus. wuxuu u bandhigay ammaanada, yacni waajibaadka diiniga ah, cirarka iyo dhulka iyo buuraha, waase ay ka cudur daarteen inay qaadaan oo ka baqeen iyada, yacni ka baqeen cadaabta alle. aadanaha baana qaaday. xaqiiq wuxuu ku dulmi falaa naftiisa oo jaahil ka yahay natiijadeeda iyo waxa ka dhalan ilaa man wafaqahu allah. waxaana amakaag leh iyo argagax, dhoohnaanta mid ayaamihiisu tirsan yihiin, neefihiisa aanay ku noqon kol haddii ay soo baxaan. waxayna u caddaan doontaa caqli xumada kan ka gaabiya xilalka alla saaray ee ku gaboodfala waajibaadka diinta maalinta shallaytida iyo qoomamada. marka kuwa amarada alla dhowro la horgeeyo allah naxariistaaga hortii iyagoo wafdi ah, oo loo kaxayn doono mujrimiinta, yacni mushrikiinta, dembiilayaasha, gaflowyada, naarta, iyagoo jalaqle aroor ah, yacni sida geel asqoobay oo loo kaxeeyey biyo. marka kuwa hore waxay dhex ahaan doonaan beero nagaadi ah janno dhexdeeda, iyagoo ku sugan barwaaqe iyo baraare, ku dangiiga sariiro boqorreed korreeya, iyo gogollo cudbigoodu xariir yahay, iyo guryasan. kuwa dambana waa ahlu naarka ah, ku sugnaan doonaan togogga jahannama, iyadoo lagu gubi doono wixii ay fali jireen darteed. tanina waxay keentay in nafuusta suubanayaasha doonaan janno u huraan wax waliba ay lahaayeen si ay u gaaraan daartaa leh barwaaqada muguuraanka ah iyo guryahaasan ee beeraha nagaadiga ku yaal. in yar bay hurdo ladeen, waxay booyeen habeenkii intiisa badan, waxay soomeen maalintii oo la jihaadeen xaqdiidyada alla ayaantooda. intee nin suubanoo saalix ah iyo haweenay suubanoo saalixada
bay jannada u xiistay siday iyaguba ugu xiiseen jannada waxay ugu xiistay camaladooda udgoon iyo akhbaartooda diiran iyo arrimahooda daahirka ah mid walba oo iyaga ka mid ahi janna doonayaasha waxay la leeyihiin allah asraar iyo akhbaar ayan ogaysiin cid qayrkii laa ilaaha ila allah maxay indho ilmo qubeen ifkan iyagoo ka baqaya inayan ayaan iyo qayb u yeelan eegidda wejiga alle ee kariimka ah intee baana baholyowday oo beerkooda u lushay jaceelay u qabaan la kulanka alle jalla jalaaluh waayo waa isaga subxaanah kan u weyn inta ay wejiyo u sujuudeen oo indho la ooyeen ka cabsashadiisa oo la baholyoobeen beero jaceelay u qabaan la kulankiisa iyo aragtidiisa janna doonayaasha waxay la leeyihiin rabbigood akhbaar iyo asraar waxaana halakan idinku soo gudbin doonnaa wax ka mida akhbaartooda iyo googoosh ah asraartooda waxaa ugu horreeya akhbaartan khabar uu ku soo qaatay alimaam ibnu jawsi kitaabkiisa sifatu safwa wuxuuna ku xusay ibnunnaxaas kitaabkiisa masaaricu alashwaaq iyagoo ka warramay nin ka mid ahaa saalixiinta oo la yidhaahdo abu qudaamata ashaami wuxuu ahaa nin la jeclaysiiye jihaadka iyo udirirka arrinka alle meeshii laga sheegaba jihaad dar alle u degdega oo hiil siiya muslimiinta isagoo maalin fadhiya masjidka nebiga ee madiina ayaa nin su'aal weydiiyey oo ku yidhi abuu qudaama bal waxaad nooga warrantaa wixii ugu yaabka badnaa aad aragtay oo ku saabsan arrinka jihaadka abuu qudaama wuxuu yidhi waayahayo waan idinka warramayaa mar baan waxaan la baxay asxaab aan lahaa oo aadnay magaalo la yidhaahdo arraqa oo ku taal ciraaq saaranna webiga furaad si aan uga hor tagno cadow mushrikiinah oo ku qaadno dagaal si aan kaga qaadno dulmigooda muslimiintii halkaa ku noolaa markii aan ku degay raqa waxaan ka iibsaday gaadiid aan saarto hubkayga waxaan ka wacdinnay dadkii masaajiddeeda oo ku boorinnay jihaadka dar alleh iyo wax ku bixinta arrinka alleh iyo u helinta diintiisa wuxuu yidhi markii aan ka hadlay qaar masaajiddeeda ka mid ah aan ugu yeedhay dadka u soo bixidda jihaadka iyo ku diriiradda jidka alleh habeen baa soo galay markaasaan kiraystay qol aan ku hoydo markii habeenkii qaar tegey ayaa waxaa la igu soo garaacay illinkii markaasaan aad u yaabay oo isweyddiiyey cidda garaacaysa albaabka waayo waxaan ahay nimaan laga garanayn carrada aniguna cidna kama garanayn haddaba waayo qofka